boqortooyo kasta oo xoog badan haddii aysan ilaalin toosnaanta maamulka iyo mideynta bulshada waxay u nugul tahay burbur. Boqortooyada Ajuuraan oo ahayd tii ugu awoodda badneyd Geeska Afrika intii u dhaxaysay qarnigii 13aad ilaa 17aad waxay u burburtay arrimo dhowr ah oo iskugu darsamay, kuwaasoo badankood ahaayeen kuwa gudaha ka yimid halka qaarna ay ka yimaadeen dibadda. Qaybtan waxaan daaha kaga rogi doonaa sababihii hoos u dhigay boqortooyada Ajuuraan una horseeday inay taariikhda ka gasho marxalad burbur ah. Haddaba intayna u gudbin qaybteennii afraad, waxaan kaa codsanayaa channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe dhahdo. Sababihii burburka cadaaladii boqortooyada oo daciiftay. Markii hore boqortooyadu waxay ku tiirsanayd xukunno shareecada Islaamka waafaqsan. Qaadayaasha iyo maamulada maxalliga ah waxay ahaayeen kuwa cadaalad fulinaya si waafaqsan diinta Islaamka. Dadka shacabkana waxay haysteen kalsooni iyagoo helaya cadaalad degdeg ah. Balse markii dambe, madaxda hoose iyo maamulka ayaa qaarkood bilaabay musuqmaasuq. Xukumo ayaa lagu helaya lacago, iyadoo dad aan xaq u lahayn la siin jiray jagooyin iyo xukunno. Kalsoonidii shacabku ku qabtay maamulka ayaa hoos u dhacday. Marka cadaaladdu dunto, dadkana way kala fogaadaan, taasna waxay noqotaa bilowga burburka. Khilaafka gudaha, qabaa'ilo iyo jilbi ku tartamaya awoodda. Waxaa soo batay khilaafaadkii u dhexeeyay qabaa'il kala duwan ee deegaanadii ay xukumi jirtay Ajuuraan. Hoggaan diimeedka iyo ka maamulka ayaa isku khilaafay cidda hoggaanka guud yeelanaysa. Wakiilo goboleedyo ayaa iyagana bilaabay inay madax-bannaani iyo kala go' sameeyaan. Nidaamkii dhexe ayaa daciifay, waxaana meesha ka baxay midnimadii siyaasadeed. Weerar joogto ah oo dibadda kaga yimid. Cadowgii dibadda boqortooyada Ajuuraan waxaa soo wajahay weerar joogto ah oo kaga imaanayay boqortooyada Boortaqiis, kuwaasoo doonayay inay la wareegaan marin-biyoodka ganacsiga. Turkiga Cusmaaniyiinta oo isna dagaallo la yeeshay Boortaqiis. Beelo Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah ayagana la saftay cadowga si ay ula dagaalamaan Ajuuraan. Magaalooyin muhiim ah sida Baraawe, Marko, Muqdisho iyo Kismaayo ayaa iyagana weeraro badan la kulmay. Marka gudaha laga jilco, aad bay u fududahay in dibadda laga soo weeraro. Qodobka afraad, dhaqaalaha oo burbur baahsan la kulmay. Canshuurihii laga ururin jiray deegaanada, gaar ahaan kuwa xeebaha, ma aysan gaarin khasnadihii dhexe. Dekedo muhiim ah sida Baraawe iyo Muqdisho waxaa qabsaday Boortaqiis iyo kooxo maxalli ah. Xiriirkii ganacsi ee muhiimka ahaa Carabta iyo Hindida, gaar ahaan badeecooyinkii sida macdanta, qalinka iyo dhuxusha oo hoos u dhacay. Barakac ayaa ku dhacay goobo muhiim ah, iyo ganacsato iyo beeraley ayaa ka cararay deegaanadoodii. Hoos u dhaca dhaqaale wuxuu keenaa ciidan daciif, adeegyo la'aan iyo niyad-jabka bulshada. Isbedelada caalamiga ah ee qarnigii 17aad dhacay. Dunida ayaa markaas gashay marxalado isbedel ah oo waaweyn. Hub casri ah oo Yurub ka yimid ayaa si weyn u bedelay awoodda dagaalada. Fikradihii gumeysiga iyo ballaarintii boqortooyadii reer Yurub ayaa cirka isku shareeray. Xiriirkii ganacsi iyo istiraatiiji cusub ayaa Yurub u suurtagelisay inay ka faa'iidaystaan khilaafaadka Afrika. Ajuuraan waxay ku adkaysatay dhaqankeedii dhaqameed iyo nidaamkeedii ay la timid qarniyo ka hor, balse dunidu qarnigii 17aad waxay u istaagtay nidaamyo casri ah. Taasna waxay sababtay inay Ajuuraan ka harto waqtigeeda. Marka dowlad aysan la jaanqaadin waqtiga ayaa isna ka taga. Burburkii ugu dambeyn way duntay. Qarnigii 17aad Ajuuraan waxaa u bilowday inay si tartiib ah u daciifto. Gobollo badan waxay noqdeen kuwo madax bannaan ama gacanta u galay beelo kale. Kacdoonkii beesha Go'oley iyo kuwo kale ayaa iyagana noqday dharbaaxo weyn. Boqortooyada Ajuuraan waxay u ekaatay magac oo keliya, iyagoo awood aanan lahayn, meeshana ka baxday awooddoodii ee aadka u sarreysay. Waa dhammaadkii boqortooyadii ugu awoodda badneyd ee Geeska Afrika muddo qarniyo ah. Ugu dambeyntii, qaybteennii afraad, maxaan ka baranay hoos u dhacii boqortooyadii Ajuuraan? Ajuuraan waxay ahayd muunad ay dunidu ku dayato cadaalad, dowladnimo iyo ilbaxnimo. Laakiin taariikhdu waxay inoo sheegaysaa in cadaalad darro, musuqmaasuq, midnimo la'aan iyo weeraro dibadeed ay si fudud u dumiyeen dowladihii ugu xoogga badnaa dunida. Casharka aan ka baran karno waa in midnimadu tahay aasaaska jiritaanka ummad kasta.
haddaan laga shaqaynin isku duubni xitaa taariikhda lafteedu way ilaawi kartaa dadkaas. Ugu dambeyntii qaybteeni halka ay ku eg tahay. Waxaa ka codsanaya channelka haddaad ku cusub tahay mar kale inaad subscribe dhahdo.